daawade waa qaybtii labaad ee qisadii dilayaashii reer Mareykan. Waa raggii argagaxa ku riday shacabka reer Mareykan, waana gacan ku dhigilayaashii jabsaday jeelkii ugu weynaa uguna adkaa gobolka Virginia ee Mareykanka. qaybteena labaad waxay ka bilaabanaysaa Willie Turner iyo saaxiibkii markay soo galeen qolkoodii waxay sii diyaarsadeen midiyo gacan ku samays ahaa. maxaabiistii kale in yar kadib waxay dhaheen ciyaarta waan ku daalnay, qolkayagii hana loo cesho. balse askartii markay soo geliyeen maxaabiista albaabka weyn ee xabsiga waxay bilaabeen qaylo, buuq, fowdo iyo wax kasta oo ay ku mashquulin karaan dareenka askarta. isla goobtan waxaa joogay askari controla albaabada xabsiga oo u furmi jiray hab elektrooniga. askarigan wuxuu furitaanka albaabada u isticmaali jiray shaashad elektrooniga oo botoomo lahayd hortiisana oo la jirtay. dhammaan 4 askari waxay ku mashquuleen buuqan ay sameynayaan maxaabiista, balse waa hab qorshaysnaa oo ay soo degeen. laakiin intii buuqa iyo fowdada socotay waxaa musqusha meesha ku dhaweyd ku dhuuntay maxbuus lagu magacaabi jiray Ariel Clinton. ujeedadana wuxuu ahaa in musqusha uu ku jiro ilaa uu ka maqlo cod ay isla garanayaan. albaabka musqushana si aan loogu soo furinna xagga gudaha waa inuu si xooga uga qabtaa. maxaabiistii markay arkeen in saaxiibkood musqusha galay isla markiiba waxay joojiyeen buuqii iyo dagaalkii. askartiina waxay fureen albaabkii labaad waxayna ku xareeyeen gudaha qaybtii ay deganaayeen. waxaa musqushii Ariel Clinton uu ku dhuumanayay soo aaday askarigii si uu u isticmaalo, balse wuu u furmi weyday waayo Ariel Clinton baa gudaha ka xiray si loo moodo in albaabku uu xun yahay, qorshihiisana wuu hirgalay. askarigii wuxuu u sheegay kii kale ee albaabada shaqada ku lahaa, isna damba kamuu galine wuxuu ku yiri hadday xun tahay musqusha albaabkeeda kuwa kale isticmaal. askarigii wuxuu aaday musqul kale si uu xaajadiisa u guto. hadda maxaabiista waxay diyaar garow ugu jiraan sidii mishinkooda u fulin lahaayeen. hase ahaatee xabsiga weyn qaybta koowaad ay ku jiraan maxaabiistu waxay u qaybsantaa A, B, E, C. iyagu waxay ku jiraan qaybta C. isla qaybtani waxay u sii kala qaybsantaa 2 qaybood oo kala xiran, waxaana u dhexeeya qolka laga xukumo albaabada iyo musqulo askartu isticmaasho. laakiin nin ka mid ah maxaabiistii ayaa wuxuu soo istaagay daaqad yar oo askariga albaabada controlo lagala hadlo. wuxuuna ka wacay telefoon loogu talagalay in laga waco. wuxuuna ku dhahay waxaan rabaa buuggan inaad siiso saaxiibkay James oo jooga qaybta kale. askarigii qolkii ayuu ka soo baxay, kadib wuxuu soo aaday maxbuuskii. isla waqtigan maxaabiistu waxay qaybsanayaan midiyihii ay ku howlgali lahaayeen, waxaana u qaybinaya mishimiistihii weynaa ee adduunka ka yaabay ee Willie Turner. balse waxaa la yaab kale waxay ahayd ninkan cabqariga ah ee qidadan oo dhan lahaa ragga baxsaday kama mid ahayn. saaxiibadii ayuu diray, isaguse waa iska joogay sababtoo ah isagu dil toogasho kuma xukunayn. wuxuuna islahaa kolley dhawaan waad baxsanaysaa, dembiga ha isku badin. dadka qaar waxay aaminsan yihiin waxaanba waxay ka ahayd maxaabiista aragtidooda maaweelo iyo madadaalo, halka qayb kale aaminsanaayeen inta hadhay inay islahaayeen cafis baa lidin fidinaya. waxaa kaloo la yiraahdaa waxay ku talagaleen inay noqdaan mucjiso adduunka oo dhan laga hadalhayo. raggii jeelka adduunka ugu weynaa uguna adkaa jabsaday, askartiina maxaabiis ka dhigay, saaxiibadoodna intay amba bixiyeen haddana aan baxsan. si kastaba ha noqotee ninkan Willie Turner wuxuu adduunka kaga tegay dhacdo la yaab leh. askarigii markuu qolkiisa ka soo baxay wuxuu soo aaday maxbuuskii la hadlay, wuxuuna ka qaaday buuggii. kadib wuxuu aaday qaybtii kale. wuxuu buuggii u geeyay James buuggii markuu daaqada askariga uga dhiibay wuxuu cod kor ah ku yiri waad ku mahadsan tahay buuggaad ii keentay. waana hadalkii maxbuuska musqusha ku dhuumanayay sugayay. isla markiiba maxbuuskii musqusha ayuu ka soo booday, wuxuuna galay qolkii albaabada lagu xukumayay. wuxuuna taabtay batoomadii waxaana furmay dhammaan albaabadii. balse maxaabiistii waxay la soo yaaceen midiyihii, waxayna qabqabteen askartii jeelka ilaalinaysay dhammaantood. askartii waxay noqdeen maxaabiis, dharkii sarena way ka siibeen iyo dhammaan qalabkii kale ee ciidanka. maxaabiistii jeelka dhismihii koowaad qaybta C oo dhan gacanta ayay ku qabteen. hadda waxay u baahan yihiin albaabada bannaanka siday isaga furi lahaayeen. balse askari ka mid ah askartii waxay ugu hanjabeen haddaanu yeelin waxa ay ka rabaan inay khaarijin doonaan. askarigiina waxay ku amreen inuu waco nin ahaa gaashaanla sare kuna dhaho xabsiga dhismaha koowaad qaybta C waxaa ka jira dhib, waayo 2 maxbuus baa isku dhaawacay. marka noo kaalay oo xaaladana la qiimay in la qaadi kara iyo in kale. hase ahaatee gaashaanlihii wuu mashquulsanaa, wuxuuna u soo diray ku-xigeenkiisa. ninkii ku-xigeenka ahaa markuu soo galay isla markiiba maxaabiistii oo dharka ciidanka xiran ayaa weeraray, wayna xirxireen.
kadib ninkuu ka sarreeyay ayay u yeerteen markuu soo galo oo isdhaho xaaladda maxbuuska dhaawacan qiimee. isagii ayay xiraan, dharka ciidankana kala baxaan. xitaa waxay xireen gabadh dhakhtarada ahayd oo loogu wacay si ay maxbuuska dhaawacan u daweyso. gabadhii markii la xirxiray waxaa isku dayay inay kufsadaan Ariel Clinton iyo Linwood maadaama aanay muddo dhowr sano ah wax gabara kufsan, balse waxaa diiday in la kufsado wiilkii mucjisada ahaa ee Willie Turner. gaashaanlihii sare ee ku-xigeenkiisa markii horeba usoo diray ayaa wuxuu damcay arrinkii meesha uu marayay inuu ka war helo, wuxuuna soo wacay ku-xigeenkiisii laakiin lambarkii lagama qaban. balse xaaladani warwar badan ayay gelisay gaashaanlaha. kadib isaga ayaa si toosa usoo aaday xabsiga, balse wuxuu la kulmay ayaa ahaa arrin la yaab leh. waa jeelka qaybtiisa C. isla markiiba waxaa kusoo yaacay maxaabiistii oo dharkii ciidanka ku labisan. mar hadday qabteen gaashaanlihii mas-uulka ka ahaa xabsiga, waxay u diyaar garoobeen siday u bixi lahaayeen. dhammaan askartii waxay isugu geeyeen hal qol oo nadaafadda loogu talagalay, iyagoo kala haray sargaalkii weynaa ee xabsiga mas-uulka ka ahaa si uu amar u siiyo xabsiga dhismaha koowaad albaabka weyn ee laga soo galo gabar mas-uulka ahayd. mas-uulkan waxay ku qasbeen inuu gabadha ku amro. waxaa kuu imaanaya 2 askari, iyaga howsha aad mas-uulka ka ahayd ku wareeji, adiguna in muddo fasax baa tahay. askariyadii markay aragtay 2dii askari qolkii yaraa ay ku jirtay way ka furtay, mas-uuliyadiina iyaga ayay ku wareejisay. 2dan askari ee gabadha u yimid waxay kala ahaayeen 2dii maxbuus ee lagu kala magacaabi jiray Ariel Clinton iyo Drake Peterson. 2 nin isla markiiba gabadhii ayay qabteen, sidii askartii hore ay ku samayn jireen ayayna u xirxireen. hase ahaatee hadda wax caqabada waxa uu haray 2 albaab oo aad u waaweyn. 2dan albaab guud ahaan xabsiga oo dhan qaybihiisa, dhismihiisa koowaad, labaad, saddexaad, afraad iyo shanaadba waa meesha laga soo galo, dhammaantoodna laga wada xukumo. si loo furo albaabada mar labaad waxaa amar la siiyey gaashaanlihii sare ee guud ahaan xabsiga mas-uulka ka ahaa inuu la hadlo askariga u qaabilsanaa 2 albaab ee waaweyn, una sheego xabsiga inuu ka helay dhismaha koowaad qaybtiisa si bab aad khatartiisu u weyn tahay, si degdeg ahna ay waajib u tahay in laga saaro intaanay qarxin. wuxuu amar ku siiyey inuu 2 albaab hal mar wada furo, dalbana gaarigii noociisa yahay van. askarigii isla markiiba wuxuu ku dhaqaaqay inuu fuliyo awaamirtii mas-uulkiisa kasoo gaartay, waayo ninka la hadlayo waa mas-uulkiisii 2 bil ka horna waa tii xabsigaas xog qaraxa laga hayay. askarta maskaxdoodana waxaa ku sii jiray cabsida xogtaas hore loo helay. gaarigii qaraxa qaadi lahaa isla markiiba waa soo galay, si toosana wuxuu soo aaday dhismaha koowaad qaybtiisa C. intii gaarigu soo socday maxaabiistii waxay soo qaadeen dhalinyar oo wax laga fiirsan jiray, waxayna saareen sariirta bukaanka lagu qaado iyagoo ku qariyay buste. isla waqtigaas intii gaarigu uu soo socday waxay sii xirteen 6dan maxbuus ee baxsanaya dhar loogu talagalay ragga qaraxa qaabilsan inay xirtaan. waxayna ku qasbeen mas-uulkii u afduubnaa inuu u soo saaro gaaska heerkulka qaraxa yareeya. iyagoo diyaarsan ayaa waxaa u yimid gaarigii qaraxa qaadi lahaa, wayna soo baxeen 6dii dilaa iyagoo isu ekaysiinaya koox gaar ah oo qaraxa qaabilsan. 5 ka mida waxay sideen waxa ay u ekaysiiyeen bamka, halka midka 6aad isagu uu gaaska buufinayay. waxayna ku qaylinayeen askarigii gaariga waday si uu isaga meesha uga cararo maadaama aanu sidan dharkii loogu talagalay howlgalkan. sidaas ayayna jeelka uga fakadeen dilaayaashii khatarta badnaa. daawada la soco qaybta xigta.